isku jirtid fitness amba aalamiito wax la yidhaahdo khaladkan aan kuugu sheegi doono fideogan iska ilaali khaladkan waa ka ugu wacan in sanado aad u badan ay dad ka lumaan amba dad ka caajisaan amba ka xiisa dhacaanba wax la yidhaahdo fitness amba aalamiito jidhkaagu waa meesha keliyata aad ku noolaanaysid noloshaada gaadho yaraanta horta sida caadiga waa nigii daawa jirnay filimaan iyo fili kartoon waxyaabo ciyaarbiyo waxyaabo waaweynba aynu isku dhex dardarsan jirnay amburooj wax kasta waxyaabaha aynu daawanaynay markaynu daawan nooxii de waxaan arkaynaa meykaaretarada dadkan ay u soo doorteen dadkan produceradu inay filimka matalaan aagtarada mid kasta jidh wanaagsan buu ahaa xitaa gabadha actorka ayaa aad u jidh wanaagsaneed iyaduna waxaan sidai u plaangareeyeen sidai u qorsheeyeen ayaa ah inay kaaga dhigaan mid walba u fit yahay xitaa dadka ka adjaasaya ayaa fit ah oo jidhkooda wanaagsan yahay waxaan u haystay bini-aadanka kale oo dhan inay noocaa wada eeg yihiin aanay mid buuran mid duuba waxaasoo dhan aanay lahayn ay jidh wada wanaagsan leeyihiin obesity oo ku badan waa arkaya waa Mareykan waa dalka ugu taajirsan ayaa ugu obesity badan ugu macaan badan ugu buurni badan ugu bakti badan isdil badan xitaa dalalkan Japan America why sababta maad garanaysaa heer ay macaan gaadhay noloshoodu heer aanay wax allaalay wax ay qabtaan aanay u baahnayn gaadhida ayaa ugu horkeenaya cuntada gurigooda iyagoo jooga oo wax allaalay wax tacaba oo noloshooda ay gelinayaan wax uma baahna oo kuwaad aad jidhkooda kaa gisid aad iskinkooda kaa gisid aad gebigoodaba aad ku dhaaranaysid haddii teena yare 14 jirkaa laga soo saaray lagu kala jibin oo comfortka waa nefiska manaan kulihii like bid'aadam walba waa u yahay inuu adkaado no si aanad depression adu qaadsan noloshu kula qalaadaan waa inaad qabataa wax adag bid'aadamku ma jeclaayaan kuuskuuska jidhkaaga ku yaala qalqalo meelaha dee soo kuusan aad flexinga aad ku samaynaysid dadku ma jeclaanayaan waxay jeclaanayaan tacabka ka dambeeyay jidhka noocaas sababtaa dadkoo dhan ma haystaan richka ka ugu richsan ka ugu taajirsan Elon Musk ma iibsan karay hadduu iibsan lahaa uu kari lahaa kii ugu jidhka wanaagsan ayuu noqon lahaa lacag waxay goynaysaa informationkaad ku heli lahayd jidh wanaagsan laakiin tacab ma goynayso weligeedna ma goynayso haddaba markaan ogaaday dadkii dibaddu inaanay sidaa ahayn ay yihiin dad iska wada faat ah qaar buuran qaar duuban qaar noloshoodii nacay geligooda bayna noocaa yihiinoo nagamada sii dariyeyno khayr bayna ku jirno waxaan isweydiiyey maxaa farqa u dhexeeya qofkan aan jidhka wanaagsanayn iyo qofkan jidhka wanaagsan of course de wixii koowaad ee maskaxda qofka ku soo dhacayay jim haddaan tago of course dee jibkii ugu wanaagsanaa baan balgaranaya jimkii baa tegey wallahi daacadda wallah dadkii meesha joogay aad iyo badankoodii qof hagaagsan jidhkiisu maan arag badankoodii eg way jireen habeenkii heelii soo ergelis woo ducunaysa chicken like physique waa weelin ma garanaysa laakiin dadka badankooda aan arkay gibi waxay iska wada ahayn dad iska yani murug u yahay laakiin waxba maqan daasaan islaha bacalin baa iga soo baxay bacalinkaasi aad iyo aad buu jiroonaysaa wallah waxaan u maqliyeyba kimiyihiisa wuxuu igu yidhi hal kaamar halkaasna farta ku fiiqay kaardhiyadii intii cararka aba dididka isdididsiintii ayuu farta ku fiiqay haye baan ku yidhi macalin wantin wiig ayaa ka soo wareegay ayaan silaalay haddaba nambirihiina haafka weyaane bal haafkan soo yar eeg soo yar jaabi biraha soo yafaad deer intaadii kalena halkaa iyo caaligaas kaga soo noqo sidaa noostee anoo dhexda soo maraya buu soo iqato joog dadka burburaxaga ma soo gacan dhinacaa joog qof aad u jidh wanaagsan markuu kelmadaha ku yidhaahdo of course dee waxaad odhanaysaa haye macalin toos baa u tegeysaa 6 ilaa 7 bilood kambacdi nooc cilil ayaa yahay cuntadaydi wax allaale waxaan ka mtini ma jirto kaadiyahan aan samaynayo oo wado
haddana guriga markaan tago ilaan waan gaajoonaya si weli waan gaajoonaya cunto aad iyo aad u badan farcone ninkaygani ismaan bedelinba 7 bilood waxaan iga dhacay ma kaftamayo 7 bilood ay 2 kg iga dhaca markaan idhaahdana macalin de waxba kamay kii bedelinaya dhinacan kale bal aan yara eego markii wuxuu odhanayaa imsa tahay markii hore 120 imsa imka tahay 180 suudiga isbedelay wejigaygii baan arkaya wax allaale wax iska kii bedelay ma jirto 2 kg mar kuridii 7 bilood waa progress laakiin aad iyo aad ay slow u tahay aad iyo aad bay u gaabinaysaa looma baahna inuu progressku sidaa u gaabiyo wallahi billahi yaryaa kaymka ahaa sharab man samir ma laha fuck off man samir bini'aadanku wuu u baahan yahay samir laakiin sidaa arrinta ha u dheeraynta aduu yaa habay kuu daana sidii aan ula murmayey aduu markii dambe murankiisa intaa iska dayay ayaan isleeday no information kan dhaama ololtay haddii kale fitnesskan waxaan ka hadlayaan iskaga sababtaa 2 kg haddii qaadaso 8 bilood inaad ma waalanay 8 bilood kana 2 kg imka intee igu qaadasaan 6 kg ku gaadho gurigan tagay researchiyan ayaan bilaabay inaan search gareeyo dadka oo dee aan ku arkay internetka oo jidhkooduna aad u wanaagsanayo dadkii aan follow gareeyo aan waxyaabihii lahaayeen ka qaaqaatayo haddana waxaan ogaaday in 90% dadkan internetka ka buuxa ay iyaguna banaalan yihiin what the fuck ummadoo dhan maxaa haddii laga helayaa wixii informationka way yaabaraa aduu sidii aan u yaabaraa dee khalkhal igu dhacayo isleeyayo fitnessyaaba kaga yaadho babjigaagii iskaga soo dhaqo cuntooyinka iyo waxyaabahaagii macaanaana iska soo celi adoo sidiisa ayaa waxaa iga soo antaxay dhakhtar jidh wanaagsan egmaa dhakhtar buuran dhakhtar jidh wanaagsan oo isaguna ka hadlaya nutritionka fitnesska aduu iyo waxyaabahaas kii maskara progareeya waxyaabo wanaagsan oo aad iyo aad u badan ayaa ka soo arkay shit ayaa ii soo dhacday jidhkiisu weelin wahayn xitaa waxaa wallahi ka jir wanaagsanaa coachkii ii sheegaya waxyaabaha haddana wuxuu sheegay wan dareemayay dee like secondka saa u bilaabay inaan progareeyon dee aan debigeysanayo hadaladiisa iyo waxyaabahaas bishii koowaadba 4 kg bay iga dhacay ninkii 8 bilood u qaaday 4 kg maraysaa dhacay of course dee wan farxaya intaan farxay aan ilaadaydiyo macayl dambo soomaaliya waxaa kama dhigtay way jiraan dad wallahi ma gaftame way jiraan dad coachija oo aad iyo aad qiimo u leeyihiin hadaladii leeyihiin magaraasan laakiin waxaa aad u qarinaya dadkan kale ee xun markaa bini'aadamkii markii sidaa loo idhaahdo coach soomaaliya waxyaabahaas anigoo kale imaka aduu markaa intii kale aan haddana aan ku soo sircay dee dadkii aan kala fahmayey amba xitaa qaar baa waxyaaba sax kuu sheegayo inta progresskii ka ergtinta ay haddana khaladiyo waxyaaba khalada saas ugu dhex dhaalaacinaya migaranaasa sida adugu sidaa u waday oon kolba in yar aan creator walba aan saa u soo qaadqaadanay informationo kala duwan oo kolba xabadna puzzlekii aan isku wadaagnaxlayay xujiyadii waxa iga khasaaray intii kalena soo barbaaray dadka magaranaasa 9 month kale sanad iyo 4 bilood ayaa iiga khasaaray waqtidashi markaa sidaa horta informationku iigu bilaabmay informationkii eegsana progresskii aadi baan u arkay markuu information fasaxda bilaabay waxaan ahaa 115 kg ilaa 114 kg 114 kg markay igu qaataydan 4 kg aan soo lumiyo sanad iyo 4 bilood ay haddana igu qaataydan 20 kg aan ku lumiyo 6 bilood ilaa 7 bilood 7 bilood ku siciiba woman saasoo leefiyo wiigwiig bay halkii iga dhacdeen waqtiga intaa leeg waxaan ku soo koobi karayay sanad iminka fitness waxaan wadaa waxa ku dhow 3 sano fucking intii horoo dhanna bini'aadan kastoo bilaabin waa weydiin karaysaa intii horoo dhanna information khalada marka haddaad mid ka qaadan karaysid videogan waxaad ka qaadataa in aanad waxba ka dhegeysan qof aanan soo marin waxaad imika adigu maraysid amba aan caawin dad soo maray waxaad imika maraysid xataa uga jeeda haddii maanta imka laga yaabaa macalinkii aan kuu sheegayey ee isoo train garaynayey inuu dhuubnaa markii hore annaa xilligaa waan buurnaa
buurnidaas dee imuu caawin karayn sababtaa wuxuu keliya tee uu soo maray waxa keliya tee uu tiij gareynayay qof dhuuban sidee looga qaadaa dhuubnida ee looga dhigaa qof fita laakiin muu garanayn qof buuran sidee looga qaado buurnida oo loo geeya qof fita waana process si innaba aan isku dhaweyn oo in badanoo farqiga u dhexeeya amba qof buurnaa oo intuu fit noqday isla caawi qof imika dhuuban oo doonay inuu fit noqdo dee taasoo kale caqliga ma gelayso inuu jidh hagaajiyo aanu wax experience wax khibrada aanu u lahayn waanad garanaysaa booda soomaalidiinu bowlay baaritaanka wax ku saliday anuu ma garanayay wixii cilmigiis ma odhanaya taa soo bar wixii cilmigiis uga dhigeen inuu bida'aadankan ag taagan haddii su-aal uu isweydiiyey qofkan kale uu ka jawaabi kari waaye ag fadhiya xaggaasuu ku daynaya su-aashaas xaggaasuu ku iloogaya su-aashaas marka mar walba su-aal kusoo dhacdo kan iyo wixigaa garan waayo bas annaba garanayso wixii baaritaan buu u baahan yahay of course hadduu qofka kaa dhuuban xitaa isagoon weligii experience kale hadduu wax ka soo bartay oo qofkii jeegay qofkaasna uu si positive si negative waxyaabte siduu ula dhaqmayo eegay uu qofkaas u shaqeyn waayo ka koowaad mar walba ma shaqeynayn waana waxay ku xun tahay kii koowaad inaad noqotid kii koowaad ee buurnaa uu caawinayay laga yaaba inuu macalinkaas aniga ahaa waxa ugu xun ee noqon karaysa waa ka koowaad ee lagu tijaabinayo wax sababtaa qofkaasi dee of course experience-kii ma hayo qofkaasi wax allaale wixii ka garanayay qol madow baad ula tahay uu soo dhex galay laakiin kii qolka bright-ka u arkayay waxaana hore u soo maray amba dad ka caawiyey badan kii sagaalaad haddaad tahay waa iska caadi markaasoo kale kii tobnaad oo kale haddaad tahay waa caadi laakiin haddaad tahay kii koowaad dad labadaba soo maray way jiraan dad buurni dhuubni labadaba soo maray way jiraan ha dad markii hore intay dhuubnaayeen dhuubnidii intay ku soo wadeen dee intay fit noqdeen haddana out of shape noqday oo baruur 20 kg intay kortay gebigiisuba kusoo noqday siduu ahaa dadkiina haddana baraya dadkaasi way jiraan oo labadiiba experience gareeya oo labadiiba tijaabiyey diyaad bil ka soo wareegtoon qofka wax allaale wax farqiyo ka aragtay aanu jirin macal fiiryadayda bro haddii aanan wax allaale waxay kuu tarin aanu jirin don't fucking watch that shit haddaawan badan waqtigaaga wax dhaama geli ayaan ku leeyahay oo fiiryadayda haddaawa kuwii aan tacabka iyo editingka iyo wax walba egliyay ha yes don't watch it haddii aanan waxba kuu tarin waxaan keliya dad sameynaya fiiryada waxa weeye inay bida'aadankii wax u taray inay gaadho haddaana qofka ahayn bro like siid garee timekaaga sanad iyo badh weeli inuu kaaga lumo baaritaan iyo waxyaabo khaladasa lagugu sheegaya bro waxaana la hadlaya markaasaa leeyay naasarkii waqtiga luminayay islaa waxaan wad ka faa'iidaysan soo yaalan naasiryo badan way jiraan oo exactly aan isku mid nahay oo isku nolol nahay anuu unique miyey qof ka duwan dadka kale miyey dad badan oo sideedoo kale u jiraan bro haddii si uun relatability aad u arkaysid si uun xidhiidh aad taa uga arkaysid weli videogana aad sii joogtid haddii videoga sii joogtid dee way jirtaa like relatabilitygaas iyo xidhiidhkaas wuu jiraa horta waqtigaa lumin bro intaas buu ku leeyahay waqtigaas yaan kaa lumin baan doonay ma adkan ee go'aan ba gahay